والصبح وناكسنين على كان السلامة لو سحدوا هالسحن هبت سيدها هالسحن لو سحدوا هالسحن هبت سيدها هالسحن 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 شو تشيكوا سوينوا فوق sameeyay mahad baan soo jeedinayaa waxaan kaloo mahad ballaaran ayadana soo jeedinayaa marwooyinkan ahlu sharafka madaxdan faraha badan oo ayaguna ka soo wada qayb qaatay shirkan soo dhaweynta aanu mudanaha wasiirka ku soo dhaweynayno iyo dadweynaheennaba xoogaa wad siirad dhaliisheen oo waxa tirada waa yartay laakiin anagu waxaan leeyahay مدن وزير تيدي منصوتا تيدي وناكسنيد منصوتا أما مروين هالنقطة أما رك هالنقطة أما مدح أبابل هالنقطة عاو وحكم مغن ملها مدن وزير أديكنا وحنو محدك أقعلنا مر والبح سيدا أبيار أقولتها هاي in aad maaragtay dadkii la sheergarayso kala qayb qaadato wixii jira inaad u timaado oo shirarka ayaad kala qayb qaadato waxa weeyaan wax weyn weeye inta aad iska timaado danahaaga ma qabsatid iskama tagtid mar walba la soo shirtaa arrintaas oo arrin weyn aan kugu qiimeynayno waana ku mahadsantahay walaaltinimo iyo Soomaalinimo iyo kalgacayl oo aan dhulka gacmaha haysan runtii aan ummadda Soomaaliyeed u soo adeegnay marka waan u mahad celinay kulligood waxa weeye waxaad markaan idinka tagay maanta runtii waxaan nahay waxaan soo marnay experience aan la qiyaasi karin maanta waxaan oran karaa waxaan idin hor taaganahay anigoo nin bisil ah markaan halkan ka tagay runtii niyad iyo waxaan ku socday ma garanaysaa wadannimo laakiin markaad arrinta dhex gasho waxaad ka soo baxaysaa adigoo isbedelay waxaan isku bedelay runtii waxaan arkay duruufihii lagu jiray markaan tagnay meesha runtii dawladihii naga horreeyay shaqo wanaagsan bay soo qabteen oo waxa weeye cid kaligeed wax qabatay ma jirto annaguna meeshii nalooga dhiibay baan maaragtay mas'uuliyad aan hore uga sii qaadnay xukuumadda naga horreysay runtii shaqo wanaagsan bay qabatay oo waa waxyaabihii nagu kalifay bay ahayd annaka inaanu ma garanaysaa mas'uuliyadda saarno oo dhamaystirna shaqada lana meesha noogu dhiibaan baa ahayd meel runtii aan dib looga noqon karin marka iyaga rabtirkooda waan u mahad celinayna kuwii naga horreeyay laakiin runtii sida walaalkay uu sheegay wasiirkii hore wasiir dawlihii arrimaha dibadda markii muqdisho aan tagnay ummadayada Soomaaliyeed duruufaha ay ku nooshaan aragnay dhibaatada ay soo mareen aragnay annaka runtii waxa aan nimka qabanay marka nagu amaanaysan runtii ma banaan kala ogeyn khasab nagu noqday marka inaan dadkayga ku qabanno maaragtay ka saarno marka duruufaha adka ay ku jireen
intaan ta ku sii dheeraan waxaan halkan runtii waxaan rabaa xalimeer inaan ku amaano una mahad celiyo runtii iyo colleagueskeedii kala soo shaqeeyay xuladii ma garanaysaa committee ay ku jiraan waxa kii u adkaa Soomaaliya dawladda ku timi iyadii xiiray iyo grubadii ay la shaqeynaysay waxay ahayn runtii dadka reejisa oo abaalmarin u baahan marka waa inaan celin runtii waana runtii ciyaalkaaga waxaan ku nimay shaqadiinii برلمان ساسوكيني إن مركا وحي كتب by committee runtii cid kaliya wax qabatay ma jirin waa la wada shaqeeyay in waxaan anu ku adkaysanay markaan isku garanay dawladdeedii hore in waxaan la yiraahdo road map-ka inaan dhamaystirno taasuna waxay keentay markaa in aakhirkii dhibaato badan la soo maro laakiin aan ku wadanimada isaga ku imanayso in haddii kala adduunyada aan ictiraafin Soomaalidu iyadoo inay shaqada qabsato naftirkeeda oo ay meel kasta gaadho magaalo kasta tagto dadka la soo shirto ay midnimada markaa saa ku imanayso ay weydiiso dhibaatadeena maxay tahay heshiis lagu gaaro dabadna markaa halka hore laga socdo road map-ka dhamaystirkiisii iyo ballanqaadkii la ballan qaaday iyo amnigii sugitaankii iyo dagaalkii labadii isgarab socday tii amniga iyo road map-kii ayay maanta dawladdan ku timi runtii waxaan qabaa adduunyada ciidana waxaan u malaynayaa including Soomaalida kulligeen cid filaysay inay maanta maartay dastuurkii la keeno laga shaqeeyo in odayaashii Soomaaliyeed la soo keeno Muqdisho in baarlamaan yimaado in gudoomiye la doorto baarlamaan waliba si dimuqraadi oo runtii la yaab leh lagu doorto iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha yani transparency waxay wax aan adduunyada lagu arag dalka aynu joogno ayaa ka dhicin sida ugu dhacday wadarkiisan doorashadu live bay ahayd mid la wada arkay ahayd taasna Soomaalida dhexdeeda ay ka soo go'day oo marka waxa weeye xataa dadkii ka soo horjeeday inay maartay dawladnimo timaado meel ay ka noqdaan meel ahayn leena Soomaalida goosatay inuu dhabar adeegto inay dawladnimadeeda keensato dhibaatadii ku dhacday ku arkay marka runtii waa u mahad celinaa dadkii ka soo qayb qaatay taasoo dhan waana Soomaaliya dhanba ayaa ta sharafteeda leh waxaan iloobi karin runtii shacabka Soomaaliyeed runtii doorka ay ka ciyaareen iyo dumarka Soomaaliyeed iyo caruurtuba leena waxaad moodaa 22 sano ugu dambeysay damage ugu weyn ama dhibaatada ugu weyn marka tagta dalka darkiisa waxay ku dhacday waa dumarka iyo caruurta bahdilada ugu weyn dumarka ku dhacday dib u socodkii ugu weynaa wuxuu ku dhacay runtii dumarka oo maartay waan ognahay marxaladii mari jireen barkii 1990 ka hor iyo maanta markaad ku noqoto yani waxa weeyaan boqolaal sano dib u noqdeen laakiin haddana runtii waa iska society resilient baan Soomaalidu imika labadii sano haddana iyo diyaabaysa yani horumarka ay sameeyeen iyo ma garanaysaa sida u soo noqdeen markii ay awoodoodii marka waxaan oran karaa dumarka Soomaaliyeed runtii waxay u baahan yihiin in doorkoodii ay ku lahaayeen community-geena runtii haddaan ragnahay in la shaqeyno kula soo celino saas ma dadku noqonayna sana anigu markii hore idaba maanta lama filaynin inaanu keeno dawlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo prime minister cusub iyo wasiir cusub iyo dawlad maaragtay saasa laakiin taas waa halkeeda marka shaqada qabato oo keento laakiin maxaad qabanaysaa markaad wixii keento dan maxaa what's next weeyaan Soomaalidu marka ma halka ma dhaafin kartaa shaqada waajibaadka ina saaran innaka runtii maxay yihiin way kala duwan yihiin mid waa mid saaran shacabka Soomaaliyeed mid waa dawladda mid waa mid group gooniye saaranta mid waa xukuumadda mid waa baarlamaanka annaka marka waxaan qabaa anigu runtii maantana Soomaalidu dhan aaminsan tahay in horta maanta meesha ay Soomaaliya gaadhay meel dib looga noqonayo aan ahayn mustaqbalkeedu inuu yahay aan qabaa anigu haddii sidan marka lagu socdo 2 sano 3 sano gudaheed inay noqon doonto daran وصبح وناكسني على كان السلامة لو سحد أو هالسحن يبت سيدها هالسحن لو سحد أو هالسحن يبت سيدها هالسحن 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 شو تشيب كان السلامة والصبح وناكسني على كان السلامة لو سحد أو هالسحن يبت سيدها هالسحن لو سحد أو هالسحن يبت سيدها هالسحن هالسحن
شوفوا